toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijka kartida bulshada mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Buuhoodle oo guursaday in ka badan 30 haweena. Arrintan waxay ka mid tahay dhacdooyinka farakutiriska ah ee ka dhaca dunida iyo geeyiga Soomaalidu degto. 40 milyan ee Soomaalida ku nool geeska Afrika iyo dunida inteeda kale. aad ayay ugu yar tahay in aad ku aragto nin Soomaaliyeed oo guursaday intaas oo haween ah. daawada kani waa Nuur Cabdi Maxamed oo 60 jir ah guursaday in ka badan 37 haweena. dhacdadan ayaa soo jiidatay indhaha reer Burco iyo kamarada Saab TV. Nuur waxa aanu ku booqanay hoyga uu ka degan yahay magaalada Burco. waxaanu la yeelanay waraysi ku saabsan haweenka tirada badan ee uu guursaday. ugu horeyntiina waxaanu weydiinay taariikhda noloshiisa. anigu waxaan dhashay marka hore 56 mar waxaan u dhashay gobolka Togdheer Burco. dumarkana guurkooda waxaan bilaabay 73 da'ahaan imsaday taan markaa waxaan ahaa inaan 7 meelaha abarmay 16 iyo 17 meelaha weey tii saddexaad gabadhii labaad waxaan guursaday 74 madaxiisadeedina halkaas ku saddexayo yara mid bay markaad bilaabaysay guurka 16 jir ku bilaabaysay amba 17 jir aan raaxay ma aynigaaga xilliga waqtiga ku guursan jiray adigu ma markaa qadarku u sababay kulli anigu taladeeda iyo maskaxaantayda markaan tuujiyay waxaan soo geeyay sidaa laakiin dadka kale warumahayn ina guursadaan ma noqon laakiin kulli aniga ilaahay ugu alaameedii waan wada hawsha tawasada tirada marka la isku geeyo imsay noqonayaan haweenka guursatay tirada marka la isku geeyo ilaa iyo qaar dhawaan guursaday dhamaan marka la isku geeyo 7 weey oo waxaan lahaa xoo maad guursaday 40 kawnaad qalqatay وايس يا بس اساس بدون اساس هو هذا يا تي كوباد واحد قرصتي دوريت يتطبعتها تيل ودنبيسي انه قرصدا الى وادغان لا قار با كسي دنبينا oo jacaal ah inaan guursadeen laakiin teamka ودنبيسay waqti xaadar bas laga jooga bas laga jooga waxa weeye waa 17 waa tay waa dhowday en nuur imshu hada bay culat هذا عورت واضح وانا بيستبع ما شاء الله marka imka qofka daawadihi wuxuu waranayaa Nuur haduu 7 ba kurta ka jaray oo dhowr iyo 40 doonayo tarantiisu imka imsay maraysaa tarantii doorta naaga waxba dhalin waa jiraan oo qadar ku sabab waay oo qadar ku sabab waay qaaran igu dibadnaayo habeenkii aan afkooda ka gaxaysto xamar ka gaxaysto afkooda ku meeriyay oo aan ku soo أنا هوشة بدون كلام قالي يفتيش كذا يثبت كذا على كلام في هوشة بدون هبين كيبان كلام سبحان وفرة هبين كيبان كرسي هبين كيبان كرسي كلام هبين كوالي ميري هبين كوان قبي سبحان وفرة يا عرف كنت سكويك عرف كنت سكويك سمعت كلام قارن مركا إيدا لينو ويشران قارن إيدا لينا ويشران إنك كفرسان برسان تقول كذا نمشونه de inta haysato isku hooya mid kale saddex baa isku hooya inta kale waa mid 7 waa dhalay oo sida 7 gabadhan waa isku hooyo 7 isku hooya gabadhaana saddex baa isku hooya inta kale waa mid qadarkiisa waa mid inta kale mid la hooya ma jirto يقار قدرك وسببي إن أنا لالبا واضح مركا دور يصدم بين قريان دور يصدم بين قريان وباتكو هو يمكن دور يصدم بين قريان ولي بقى أنا وحبل وحبل لين خالتي واضح لكن بتكسير لين باي أنا لبي يصدم لبي لبا تنبا يصير لين iyagu sii dhaleen tarantoodii waliba dhalinyar iyo way u badeen iyo caruur iyo kuwa imka curtay iyo caruur iyo dhalinyar baa badeen kala wax rajeynaa tarana inta ma qaar baa wali xufr saarin bee way inkastoo daan kuwaan iyo aan seminaarka ugu dhigo waa in la badiyaa naag gaada qayb ku jira ma wax xuma Nuurow in la guursado inuu maba xumayn la guursado laakiin 7 kaad
haweenka maxaa nuur ahaan kugu kalifaad soranaysa waxay u kalifay horta waxa weeye ninku ma marku xoolaa leeyahay mise marka aan xoolaaba lahayn xoolaha markuu leeyahay wuu dhowraaday wuxuu sada waa lagaa qaadaya soomaad garan markaanu salahayn waxa weeye dumarkana aan berigii hore dumarka laba isma weydiisan jirin waa maqasheen baan u malaynaya waxa weeye nin wali waa masaafiin jiro waa kaxaysan jira aniga masaafadaasi ku soo wada garin gabadhan mooyaane soomaad garan marka waxay u kalifay mar haddaanad xoolo lahayn haatan baldadu shaadi iyo ka tag markaa dadkeena ilaahay weysii hawshii aan ku tala galay waan ku guulaystay maasha allah hadaf baad lahayd hadaf buu lahaa nuur waa tay marka shareecada dad islaamaynu nahay shareecada islaamka marka dee aynu eegno arrimaha noocan oo kale ninka looma ogola 4 dumar wax ka badan inuu guursado imka daawaduhu wuxuu isweydiinayaa nuur dhowr iyo 30 kan miyuu soo gaarsiiyay mise talow si kale ayuu waxa weeye markaynu daawadaha markaynu u fasilo u sheegno 4 wax ka badan sharcigeenu ma ogola markaan guursanay miduu ma furi jiray 4 miduu ma furi jiray 3 haddaan qaba mid ma furi jiray ama boos baba iga banaanaa laakiin weli 4 wax ka badan ma guursan marka boos ku banaanaado ma guursanay marka 4 taas mar walba ku ilaalinaysa taasaan ku ilaalinay hoos uu nuga dhibay waa taa marka wadigan ii sheegay inaad furaysay weli ma dhacday de inay chance baad haysataa inaad haweenkaagii sii haysato aad rajactu tiraahdo weli ma dhacday qaar aad rajactu aad kaga maarantay qaar kale soo gursay way dhacday intaan weynaaday وانت وين هذا وين؟ عقلي لكن مركي انا يلا مركي انا يلا رجعت جو عمال واي ان ولي انتي اد حوينكا اد كورسنيسي الى arrinteenu mixwarku wuxuu ku wareegay haweenka iyo taariikhaha iyo arrintaas ma dhacday wali haween gabadh dumarkaaga mid kamid oo kula dhistay dumarka cusub waay إلى تضبع مد ملحسة ديجا نقطة لا تشوفها تضبع هوينا ملحسة تضبع هوين بيجي ملحسة ديجا نقطة واي ويقولوا جاي يقبح يسول لي شرح يقول لي وعيني واي كي أيده دقنيت بقى كي دقنيت بقى لي شرعي عجيب واي لي وعيني واي سمعت كده واي مركا دتكو دوا كلا ددوي وانا كلا إلههم بقى توش زي كسوة كلهم واي ناقينا هذي مغشني كسوة بوسي دير كوا قبتها naagina haday maqasho ugu guursaday waaba ku dhistaa aniga naag malxiisad iiga noqotay 7 dumar ama wallahi inaan ka badan taan malaynaya ayaa imika joogtay laakiin aanu kala tagnay iyada markii dib calafku weydii kara waa loo kala maale laakiin 7 wiil dhistay oo malxiisad ka ahayd ya wasad xaaska 7 ku dhistay markii hadda dambe calafkeedii kala dhamaaday maxaad oran kartaa inay sabab u noqotay waxa de guurkii aan guursanayay kii un baa ku batay markii kii ku cirbaxayna dee waxay istir meesha dan rabam ya sidaasaan u malayay sababtaas inay tahay wax badan xaasaskaas faraha badan aad guursatay haddana imika nuurkeediisa uga dhigo imsuu ka xasuusan kara magacyadooda waxaan ka xasuusanayaa kolley dhowr iyo toban ka xasuusan dhowr iyo labaatan qaar baa muddo ka dambaysayo waktigii da'dina soo yar korodhayo kolley adigu waxaan filayaa kolley ilaa labaataneeyo waa gaadhsiinaya haddaan kadisooyinka ku dhufto laakiin de waktigu waa jiraa yar da'duna soo xasuusta waxaa laga yaabaa inay magaranaysa meesheedii ka dhaqaaqdo marka aynu de guur ka hadlayno xataa aayadaha qur-aanka kariimka ay qaar ka mid ka hadleen guurku mawadatan waraxma waxa jacayl iyo naxariis ayaa ka mid ah nuur imsaynu oran karnaa jacayl ku guursatay haweenka kolley dee naagaan jacayl lagu guursan lama guursado dee anu kulligood baan ku guursaday baanu qabaa jacayl
dumarka marka aynu eegno dabeecadda ilaahay u sameeyey nuurow waxay jecel yihiin inaan lala guursan ninka guurka badanna waa neceb yihiin adigu ka nuur ahaan markaad saaxiibo leedahay ee aad saaxiibadaadii wada socotaan ee haweenkoogii kugu arkaan adigoo la socda oo haddana dumar badan guursan way nacaan noocaas weli ma kugu dhacday noocaas oo raggii saaxiibada aad ku karaadeen dumarka noocan dhowr bay la dagaalameen intaan ninkoodii soo raacnay oo gurigoodii nimi ayay naagtii aad giir isaga kicisay dabeedna aniguna waan arkay inay giir isaga kicisay dabeedna waxay tiri manuur baa kula socda nuura gurigeega maxaa ku keenay wax horena iskumaanaan ogeynba dee waxay keen ninkaan maadirka dhibaan la socday adiguna kumaari kara adna kumaari karo nabar mabay soo qaato waxay yeeryanaysa ilaa dhulaan loweyn bay yeeryanaysa dee dabeedna markaasay ka hadha sidaasay saddex hablood oo caynkaas dumara igu dhacday caynkaas waa laga yoolo xaafadaha haddaan soo maro dhexdooda dumar babasayta xaafada dhexdood haddaan soo maro dadkao dhan isu wada yeedhi jiro noor baalka maray waa xaafada iska dhan oo koonfura ya ninkaa nuur waxa lagu culaadiyey wax kale ma jiraan marka maxaa dareentay culays baan dareemay in dadkii lagaa takooray war culays baan dareemay sidan qaarna way igu jecel yihiin oo naagta la guursanaya way igu jecel kuwaan la guursanayna way igu neceb yihiin ama wax lagala tegaya la dhibaataynaya way neceb yihiin hooyooyinku laakiin naagta amaan wada hadlay ama aan u socday doonaysa inaan guursano dee way necabta hadaladan la leeyahay iyo waxaan aniga lagu hayo saarkan wad moo jeclaa saarkan wad moo jeclaa marka aad dee culayska intaasa le dareentay ma joojin dhan walba waan ku arkaayo ma joojin maan joojin hase yeeshe haddana waa adigan dee calafkii dhammaanaya kolbo gabadh cusub guursanayay markaa dumarku kula haasaawayeen ee dambe aad la haasaaway sidaad wada hadlayseen say ku arkeen adiga waxay ii arkayeen dumarka horta ninkii wax guursadana ama dumarkii guursadana way jecel yihiin nin la yidhaahdo waa intaasu jiraado weligii ma arag dumarku ma jeclaa waa doob bay yidhahdeen doob xoo nacasa weya muxuu naga hadlaya weligii kaa waa locol laakiin ninkan la yidhahdo waa firfircoon yahay kaa aad bay jecel yihiin way soo dhoweeyaan ya anigu waxaa baan odhan jiray haddaan caawa dhinto naaga waxaan iyo aasiba maayaan xaalad walkaasi marka imika waxaynu oran karnaa waa fariin ku socota ragga oo ah waa bal dumarka badiya ya raggiinan iska taagtaagan cidi samaanteeda ka qaadi mayse raggu inuu dumarka badiyo de waa waajib dee nabigeeni baa magaranaysa alayhi salaatu wasalaam dee yaa ka gaadhay magaranaysa markaa in guurka la badiyo khayr baa ku jira mar khasaaraa ku jira marna faa'iidaa ku jirta mar khasaaraa ku jirto markaad gabadhu yarta aad maalkaaga ka bixiso xoolahaaga ka bixiso ee ilaahi raxmaanka aan waxba kaa siin dhala markaad de khasaare ayaa halkaa kugu sugan war ma garatay markii waxba aanad ka bixin ilaahay ubad kaa siiyo ma garanaysaa dee wixii aad doonaysay ilaahay ma garanaysaa kuu qarxiyo dee markaa faa'iidaad ku jirta markaana faa'iida leeyahay markaa kolli dumarka waa in la badiyo dee dad noole calooshoodu buu ka soo baxaya oo dad noolun bay dhalayaan dee ya ilaa cidna lagama hele waa laba arrimood isbarbar socda marka aynu eegno waktigii xiliyadii samaankii aad joogtay ee aad guursanaysa adigu saad carabka ku soo dhufatay dee dumarka waa lala tegi jiray oo waxa weeye waa la masaafaysan jiray waktiganna iminka waxaad moodaa guurkan dambe adaga xataa soo gaadhay iminka 2017 oo kale labadaa farqi culays dhaqaale mid bulsho maxaad ku qiyaasi kartaa labadaa samanee kala duwan horta waxa
isku mid ah baan ugu marko guurkii hore inta marka la kaxaysto waa la aroosan jiray marka la aroosto iyo marka aroos ka baxdo ninkii dhalay wuu tirsanayaa iyo reerku yimid waxa la waa la stooriyin jiray meel baa loo gogli jiray subaxina wixii ninku hayo buu siin jiray hadduu adduun badan hayana wuu siin jiray hadduu wax yar yar waxaasan hayaaye balan buu qaa jiray suuqsan jacsan duca ka dhici jirtay waxa u dhali jiray sida digaaga dumarku halkan kuwan dambe muxuu ahaay dambe la hebaysanayo inantaadii nin baa dooniya la odhanaya waa caydh jawaan buu soo qaadanaya odayga ama biyibu ka soo qaadanaya ama magaalo ka soo qaaday madhan wuu dul fadhiisanaya wuxuu qorshaysanayaa xoolaha ka qaato inuu talow inuu wax weyn ku qabsado odaygii daaradii xumeed ku lahayd hebla warad ka listaa deel haddii garans ama barkadii qarashka daynanta ninkii baa odhanaya dabeedna waa la meerinaya gabadhii oo wax yaroo qadaroo dee aan ka badnayn baa qolada noqoto baa dee loo dhiibaya laninku ayaa loo dhiibaya habaar buu iyo hoosta ka cuskanaya markaa habaarkii dhashu markaa dee qaar markaa ilaahay wax yar siiyey wax badan siiyeyba way leeyihiin anigu horta kuwii hore baraka badan baa lee soo maad garan anigu mid baan kuwa nimanka mid baan ka hebistay mid ayaa ka hebistay guriga sii jeedaa soo bishay waxaan gaadhay meel xaggan oo hawdka ah oo calisaad la yidhaah ayaan gaadhay 15 habeen baan qabaa 15 habeen ayaan qabaa 7 nin baan siiyey gabadhaas oo soo fadhiisto iyaga ah laba saddex walaaliheed iyo wadaadkii adigu rag badan oo caynkaas ahay inta aanan gaadhin calisaad kan dhoweynoo dhow ayaa alaabtiiba guratay waana u shaqi tego shaqa markaa la igu yeedhay bas ba u yeedho waa guratay islaantii kale yeedho waxay tii miyaad ogtay gabadhii inay alaabtii guratay waxna ma ogid adoo dhacay maxbaa dhacayba 15 qabaa waa aroos waa tii aan hibaystay wey taasoo kula hibaystay tiina waa tacay ku noqotay dee markaa miyaan kuwii hore hawl fududaynta wadayaalay ka barakaysan yaani ka baraka badnay yaa oka wax badan baa kugu duugan marka dee dhinaca xagga lamaanaha laga eego wax badan baa kugu duugan dawaarkuna waqtigu kala duwanaayo beriga xataa dadka odayaashu markay sheegeen xoranay noloshii hore baraka badan noloshan dambeymka oo adagta oo siba u adag tahay wax sababayna ilaam kala garan maayo adigu inteenu sheegsanay soo xustay waxa jirta haween gabadh aad guursatay markaa markii saddex كده ما أقولشتي بالقصة هذه فاحين يصير يقول دحضي فالنو دول استاجي واي تذكرتني بدوان بوحة واي مركورة واي تذكر بدوان أيوه بوحة واي تذكر فودتك يدرب بنك وانا ما عندك قبل ده مركي أنا ما هرسدي يعني بالحيث دي أي تاعي يا روس كي لقوا روس كباح يقول ما دي بقى يا روس كذا أنا سنو قينتي أيام مركي دمبي أيام الحيث دي وعنكو يري صوص حقولك واي تي كان ما صوص أحد واي أنا قد دحدو ده هو ينقضي واي دحدو واي أيام سحر واي تاني نالو شيء كانوا كبقية قبل دي ما كوري قبل الواحد سود بس أرورتا واحد كبس بينو سود بس كميس بينو سود واي عاول قرقينا السياحة نسا عاول قرقينا واحد قبل لما الحيس ده نينكا أي ما الحيس كوتاي وينام فرلقة في بالي واي هذين كان واي أرورتي مركا كبس بينو سود بس مركا ما رقم بس هذا كوكو تيام سوناك تدي ما هو اسمه عاوا أنا أقول كيف كويس أنا واي هو بتصصف بتصصف واي على كل حال قبلي سيدي يا كوار قولي واقوري أدوك هوشي يسكن ما تبرو واقوري أسكو عريش ما كليك واي أسكو عريش أي كليك أي كليك كل الرواية أسكو عريش لو أسكو قول رواية مركب حلو بعد وش هتي أفري مركا أفري تطبعاتك
markaa aan guursaday waxaan u sheegay habeenkii saddexaad baan u sheegay marka maxay dareentay markaad u sheegtay ilaa waa aroosadii waa yahay bay tiri waa yahay dee hadday nidaamka caynka ka dhigayso inaan been ku curaynaa baa la yidhi waa iska xaajaysa baa ku dhaqan weeyo dibadda inan yar bay rubay waa tahay macnaasaas baan ka watay tiina way hergashay isku cariis baan ka dhigay markii dambena isku guri weyn baa laba guri aan kala waxayo adigu markii dambe dad guri laba maqsuum dad soo golo isku wanaagsan bay ahaayeen dee labadiina laba qof bay kala dhaleen markiiba waa kala bad baa wada cufteen maasha Allah xaaskaa berigaa markaa iyadoo xiisada guursatay imsay ku dhashay labay dhashay laba sidaa ku imka kulli de qadarku inuu wada nool yihiin qaar dhinteen war ma hayo way dhinteen qaar way dhinteen qaarna waa dhinteen marka imka nuur markii TV ka daawadaan too حد فرينا نقول له فاقنا كل قاروا لقى يابين كنت داولا waxaan ugu lifaaqaya kuwa ay daawanaya ee aan dhalay iyo kuwa ay daawanaya aan dhalin iyo wixii codkayga maqlayaba iyo wixii aragayga maqlayna xaasaska aan furayba dhammaantoodba horta marka hore waxa weeye waa aad baan ayaan u salaamaya marka labaad dhalinyarada anigu aan dhalay waxaan leeyahay ubadka iyo xooluhuba waxay ku jiraan xooggiinna itaalkii xoolaha iyo ubadkuba xooggiinna ku jiraan hala gaboobine oo magaalada hala fadhiyine horta marka guursada guurka badiya aniga waa iga seminaar waxna dhaqna soomaad garan dumarkii waxay soo dhalay kuwii aan waxbay soo dhalin waxaa leeyahay waan idin hambalyeynaya haddaan dhibataanna waa idiin imanaya waa idin aasaya haddaan dhintana dee ii kaalaya kulligiin waa fariin weeye waa fariin aan diray weeye kulli guntii baan iyo gabagabadii xagga barnaamijka ayaynu maraynaa taladaasi waa mid guud oo runtii dee wax badan taabanaysa marka aynu yaro eegno xagga dhalinta maanta ee dhalinyarta markaynu eegno ee noloshii ka baqaya adiguna 7 aad soo guursatay iyaguna noloshii bay ka baqayaan oo waxa dhaqaalihii ama guriga wixii la dhigay ama wixii la cunay ama wixii lagu soo hinay iyagoo ka baqaya ay maanta dhalinyar badan ay noqdeen qaar waaweynaaday adigu nuur ahaan maxaa aad oran lahayd oo go'aanka noocaas qaad waxaan oran lahaa horta waxaan diilaba baxshay waxaan ilaaba baxshay anagu markaan hawshan wadnay dadkan dhaqankoodii baa ku soo hagaagay dhaqanka iyaga anagu markaan joognay aan hawshan wadnay adduunka ma ana gurin jir xalan baan isdan jir gabadhan doonayay inaan ka haysto habeen gurigooda ka haysto gabadha aan damcayna gurigooda ka haysto ayaan u imi waan ka haysta waxaan geeyey insidaan geeshay dabadeed hooyadeedna markii hore yaan qaadka ka qaadan jirado waan isnaqaan oo qaadkaan ka qaadan jiray maalintii dambe yaa arooskii la wadayoo markii arooska 7 casho ahaado markii dhammaaday caawa gaafkii yahay yaalay de waxaad yeeshaa gabadh qaad nooto saatan caawa la soo jeedayaa qaadkii nooto waayo baan kuuro waxaan u doonay gabadhii baan uni tii dhashay ayaan uni waxaan ku dhaaya dhehe ama dadkii miyey kaaluntay inantii miyaad weydi haa nuurowo meel allaale inantaa meel la qabadsiiyey ma garanayo bay tiri anigu gabadhii meel lagu aroostay baan garanayaa baan ku uri badbaan soo maha arooskeedii baan kuu sheegay halka lagu aroostay anigana qolay sugaysa waxba waa kuu keenayaa ma dhawaan soo noqonayaa burjufshaadays waa sodohdi hadda waa sodohdi dantu caab malaata waasha danta leeyaa mar bay kugu kalifaysaa markaasay tiri masaas ahaadoo ii sheeg bay too waxaan insida marka la joogo waddada xaggaa laga soo maro laynka ku soo jeeda marka xaggaa loo dhaafo sandaqada weyne xagga u jeeda xagga waata gabadhii lagu aroosto ninka ina aroostay ma garanaysaa
كل نكر أو إلى مقعة بيشيجي النور له هذا كوبيري واي بيت بدوك كسوقات هبين كل ما قرادي أسكتي عشان الصبح بيت سلاج سوتشر ما دي سلانتي صبحي سلانتي وسوتشر ما قري بيتي الباب كي قرعة ويدي وقفصي لما جوجا بيت نينكي توسي انت كرسي قدا وري فورست ها وي توسي كان ولي قاد كسوقات يا دين كرسي عجيب أتوار ما دي بقى كل يوم كاين تكاليبا كل يوم قلت طول ما عرب كنت يا كارين ساوستي يا ساو لما ما انت مسكت شو كده ما انت تنبه ينقول يوم قلت لعقتي قات كره ورسده واي نينكو aad ba isku ilaalinaysa ها لعقتي قات كي وحوغا لعقو كره ورسده وهوجي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ورياه haddii aad inantii iga dhacday maxaad markii dambana ii dhacday ayay tiri waana ka filayna haddaad inantii iga dhacday maxaad markii dambana ii dhacday hantidii iga dhacday markaasaan ku yidhi horta labaduba way furan yihiinoo way iska furan laakiin hantidii aan kaa dhacay iyo intaa kale oo iyo sooriye ah labadaaba waan kuu sidaa adigu wax buu dhacay ka jooji waa kaasi amaaday uune waan kaasi amaaday uune wata lacagtii iyo soobiyada baa kuwa gabadhi waa qabowda adigu iyo gabadhu alaabtay lahayd iyo dahabkeedii mariyaheedii waxeed bay ii soo dhiibtay reerka halkaasuu reer ku noqday maasha allah soo maad garan xilliyadu mar bay wax kugu kicinayaan dee duruufta walba sababaysa markaa taasina waa iga soo martay runtii taariikh badan dee haddaynu maanta oo dhan istaa wax badan baa kaa dhex guuxiyo oo waa badan waayo aragnimo iyo waxa dadka la wadaagaysay iyo talooyin iyo wax badan barnaamijkan 2 iyo 3 iyo kaga geeyeen meel laakiin si intaas aynu ku soo afbeerina marxaba aad baad horta ma xasantahay jiritaanka dhacdadani inay jirto waxa aan wax ka weydiinay koos cali mire oo ah mid ka mid ah haweenkii tirada badnaa ee uu nuur guursaday waana tan koos iyada oo ka waramaysa siday isku guursadeen iyo markay ogaatay in uu xaaji nuur la guursaday waxay samaysay imika xilli laga joogo ilaa 3 sano ayaanu nuur wada joognay markii aan isguursanayna runtii inuu guur badan guursaday inuu dumar qabatoona uu iga qariyo ima sheegin aniga waxay ku noqotay inan yaroo markaa 17 jir aan ahaa waxay ku noqotay arrin la yaab loo kadisay markii aan taariikhdiisii ama waraystay ama ay la kulantayba waxay ku noqotay aniga arrin kadisaa oo si fajicisa ila noqotay markii dambe aan soo guda galay waan iska carooday 18 dumar ay iga dambeeyay aniga tii u horeysay anoo yaroo ugu ila guursaday wax badan ba iska kay bedelay maxaa waxaan ku fikiray inaan habeenkii isaga dilo ayaan ku fikiray adiga xagga ilaahay bay ka ahaan weydo ma dirin way dhacdayo uu guursaday manaan dirinoo ma habeenkii waxaan ku tashaday mudiinta leeg baan tushay inta muddo leeg baan samaystay mudiinta leeg ayaan samaystay caawa markuu socday caloosha ka soo rid baan ku tashaday allihii qadarkiisa ilaahay kama dhigin may dhicin oo maan dirin way ka soo waado tii labaad buu ila guursaday waan soo xabay masayrkii awadii waan soo xayba tii saddexaadna waa baan la qabsadayoo caadi baabay la noqotay labadaa dumar ay igu fijici badnaa imika waganaan joogana tuu guursado waan ka xaraabaystaa xilliga xaraabadan maraya de markaa imikase nimco badan baan kala kulmayo caruurtaydu weli waa yaryaroo wax waa guursadeen laakiinse waa yaryaroo dee imika yurubba caruurtan ayadoo ahaa markii diidayay qaar baa yurub lacagta iga soo diro moobilkayga ku soo dira markaa faa'iido aan ka helay weeyaan alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan imika u taageersanahay guurkiisa aad baan guurkiisa u taageersanahay waana ka faa'iido sidoo kale waxa ay fariin hawada u marisay haweenka Soomaaliyeed iyadoo oo kula dardaarantay inay ragga u ogolaadaan guursashada haweenka guurka badan waxaan u arkaa in marka hore kulli wuxuu iska leeyahay naxdin uu leeyahay guurku oo ninbadeesa ragga la yiraahdo ninna ma ogola ragba ma ogola naagtaadii marka la yiraahdo ninba ama ka jeclaaday ama
kula qaybsaday raguma ogolo kolley naxdin way iska leedahay guurku naxdin uu leeyahay kawdhi laakiinse waxaan oran lahaa dumarow faa'iidada ka dambaysa ayaa ka wanaagsane ha masayrina baan oran lahaa iminka ayaantii dhaweed ay weydeen hawd baan u baxay waxdagelin baan u baxayoo dumar masayro caruurahoodii kala qubay iyo qaar sidaan habeenka halkaa mudida ugu haystay intaba waan soo wacdigeliyey caalamkana waxaan ka codsanayaa waxaan doonayaa inaan guriba dhisto wacdigelinka dumarka Soomaaliyeed masayra aan wacdigelin ugu sameeyaan haddii insha Allah bidmillaahi kari aan rajaynaya inaan sameeyo daawadayaal waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka toddobaadkan oo idinka imanayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer alaaba barnaamijka kartida bulshadu wuxuu soo bandhigaa kartida bulshada kala duwan dhankay doontaba ahaatee waa farsamadii iyo duubidii Saab TV waxay idila soo codsanayay gabahaan barnaamijkan anigoo ah Axmed Xiis Cabdi ducaysane intaynu barnaamijkan mid lamida toddobaadka dambe ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh